السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوهيadii ka horreeyay kuwan waxaynu kaga soo hadalnay wadnaha iyo normally sida uu u shaqeeyo. Kana waxaynu kaga hadlaynaa xanuunadii aynu kasoo sheekeynay fideogii labaad oo ahaa kuwa ku dhaca xididada wadnaha iyo sida loola tacaalo iyo sida loo daweeyo ama loo dabagalo. Kan waxaynu kaga hadlaynaa muruqa laftiisa dhibta ku dhacda ee wadnaha. Wadnaha muruqiisu waa muruq aad u xooggan, awood badan leh, runtii ay adag tahay inta badan maadaama uu yahay muruq shaqaynaya 24/7 every second ka mid ah garaac samaynaya kaasi oo aan joogsi lahayn. Ilaahayna aynuugu mahadnaqanayo. Waxaa laakiin imanaya wax walbaaba dhammaad buu leeyahay in uu xilliyada qaar shaqada gabo ama heart failure wax la yidhaahdo ay ku dhacdo muruqa noocyadiisa kala duwan. Muruqu wuxuu xanuunada ku dhaca waxaa ka mid ah inuu kala baxa ama ballaadhashadu ay ka mid tahay xanuunada ku dhaca inuu muruqu ballaadho oo ka ballaadho intiisii hore. Dabeedna ballaadhka uu kala baxay uu yareeyo awooddii uu dhiigga ku tuurayay oo ay noqoto mid meel dhexdhexaad ah ku dhammaata iyada oo aanu muruqu ballaadhanin laakiin uu dhubtay. Qaybta labaad waxa weeyaan muruqa laftiisa oo ballaadhay isaguna weynaaday haba weynaaday ee shaqadiisii haddii u weynaaday uu xoog ku tuuraya dhiigga shaqadiisii meel dhexe ayuu xoogga iyo muruqa u yeeshay dartii uu ku yaraanayaa. Taasina waxay ka timi xanuun markii hore muddo dheer soo bilowday kadibna qofkaasi muddo la tacaalayay intii uu muruqani ballaadhanayay. Qaybaha kale aynu sheegi karno wax restrictive la yidhaha weeyaan oo iyaduna in ay dhacdaba in qofkani uu iyadana stiff noqdo. Muruqii waa sidiisii waa normal laakiin stiff buu noqdo. Stiff waxa weeyaan uu qallafay yacni wadnihii dhaqaaqa lahaa ee boodboodayay ayaa meel ku qallafay dabeedna dhiiggii wuu soo gelaya dhaqaaq yar oo khafiif ayuu samaynaya dabeedna meeshaas ayaa wax dhacaysa inuu dhiiggii shaqo badan qaban waayo. Waxa kale oo ka mid ah in qofkan fats ay bedelaan muruqii laftiisii wanaagsanaa ee xoogganaa ayaa halkiisa waxaa gelaya subag baa gelaya iyo salis kale oo lamid oo tishiyada daciifka ah ka mid ah. Muruqii markaa isbedelkaa ku yimi awgeed ayaa iyadana khalkhal ku imanaya. Waxaa jira mid kale oo dadka inta badan aynu maqallo hebel waa laga nixiyey ama balaayaa ku habsatay kadibna naxdintii uu ka naxay arrinkaa ayaa waxaa ku dhacay inuu wadnuhu shaqayn waayey ama uu suuxay kadibna sidii wuxuu stroke ku dhacay oo kale ay sheekadiisu noqotay. oo wax la yidhaahdo heart broken syndrome oo ah inuu qofkani wadna jabba malaha oo qaruurada jabtay iyo waxaankaas inagu u naqaanaa laakiin adigu inuu wadnuhu ay dhibaato ku dhacday sheegaysa. Qaybta aynu kale ku dari karno waxaa mid ka mid ah noocyada wadnaha ku dhaca xilliga dumarku ay leeyihiin uurka waliba late stageska ama marka ay umusho kadib ilaa 2 bilood 3 bilood kadib muddada inta ku jirta u dhaxaysa ilaa ugu dambeeya uurka ilaa iyo marka ilmaha dhalaan kadib xanuun ku dhaca oo isaguna wadnaha dhibaato u geysta. Waxaynu ka hadlaynaa bal mid walba iyo sida loola tacaalo iyo waxyaalaha ku habboon ee la siiyo. Way isku dhadhow yihiin laakiin mid ayaynu u dul istaagi doonaa. Qaybta ugu horeysa aynu doonayno inaynu dul istaagno ama ka hadalno waa qaybtii horeysa inaynu nidhi waxa la yidhaahdo sida baaluunka oo kale ama bibida ayuu u kala baxay oo waxaa la yidhaahdaa dilated ama DCM ama waxaa loo yaqaanaa dilated cardiomyopathy ama DCM ayaa loo soo gaabiyaa. Soo dhawaada mar kale waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad naga mid noqotaan. DCM waxa weeyaan dilated cardiomyopathy oo ah inuu muruqani ballaadhay oo uu normalkiisii ka weynaaday kadibna dhiig badan uu hayo laakiin dhiiggii uu tuurayay ay yar tahay. Waliba gaar ahaan waxay ku dhacdaa qaybta loo yaqaano left ventricle oo ah calool-weynta qaybta bidixda taasi oo ah qaybta wadnaha ugu awoodda badan gaadhsiisana jirka dhiigga oo dhan. Waliba waxay tuurtaa dhiigga oxygen-ta leh kaasi oo isaguna jirka oo dhan gaarsiiya. Waxyaalaha calaamadaha waa inta badan waliba xanuunadan aynu ka sheekeynayno wadnuhu ay ka yara siman yihiin. Qofku inuu neefsigu ku adkaado daal badan inuu yeesho
in uu qofkaasi lugaha hoose ay aad u bararaan welibana halka ay lugtu hoose ka laalaabato ama ankle jointiga la yidhaahdo. Waxaa kale oo suuragala inuu caloosha qofku biyo iyadna ku yeesho oo ay caloosha iyada lafteedu uu idiimo ku yeesho. qofkaasi mar walbaaba wuxuu yeelanayaa inuu garaac palpitation yeesho, inuu wadnihiisu garaac joogta ah samaynayo. qofkaasi inuu laabtu ay culus tahay ama ay tahay sidii wuxuu wareeraya oo kale mararka qaar. sababaha ugu waaweyn ee keena waxaa ka mid ayaa la yidhi genetically inuu qofkani mutated yahay oo inuu jiinkiisu khalkhal ku yimi, taasina ay keentay wadnaha ay dhibtani gaadho. waxaa ka mid ah viralka, inuu fayrasyada qaar kamidihii ay sababaan myocarditis-ka qaybta loo yaqaano. toxinka ayaa kamid ah. toxinku waxa weeyaan sida masalan alcoholka oo kale, dadka khamriga cabo oo kale, ama dadka chemotherapy-ga la siiyo ee sida dadka kansarka qabo oo kale dawooyinkaasi la siiyo in ay keeni karaan. waxaa kaloo kamid ah xaaladaha qaar qofka ku sugan yahay xanuunadii aynu hore uga soo sheekaynay aynu nidhi arteriga, weliba coronary artery disease-ka qofka hadduu qabo oo wadnihiisa qayb kamid ah ay xidhan tahay, energy-gii la siinayay iyo nutrients-ki la siinayay wixii oo dhan ay khalkhalaan, taas waxay keenaysaa inuu qaybtani ay dilate noqoto ama ay ballaarato. waxaa kale oo kamid ah qofka hadduu macaan qabo, macaankaasi oo uncontrolled ah oo aan la controlin, iyo hadduu high blood pressure qabo oo uu leeyahay dhiigkar isaguna aad u sarreeya. waxyaalahaas oo dhan la isu geeyo waxyaalaha risky factorska la yidhaahdo ama sababi kara ama khatarta jirta ee inuu xanuunkan qofkan ku dhaco aad iyo aad u sarreysiin kara ayaa kamid ah. waxyaalaha lagu ogaado waxaa kamid ah in qofkan chest x-ray laga qaado, la arko wadnihiisa oo ka ballaadhay intii lagu yaqaanay iyo eriyadii wadnaha deganaan jiray isagoo kasoo durkay oo meelo kala xidhay. in AC-ga lagu eego ECG-ga lagu eego waxa loo yaqaano electrocardiogram. haddii loo sii baahdo in la hubiyana MRI-ga iyo waxyaalaha lagu sii eego. waxaa kaloo iyadna muhiim ah in qofkan laga qaado blood test oo la eego dhibaatada dhacday iyo siday dhiigga usoo gashay oo iyadna testis gaara la qaado. haddii loo baahdana in genetic ahaan qofkani miyuu familial link la leeyahay xanuunkan, inuu mutated geneskiisu ay yihiin iyo qaar kamid ah, ama inuu familiga la leeyahay xidhiidh xagga jinka. medicationska la siinayaa waa dawooyin lagu controlayo. waxaa la controlayaa milixda, waxaa la controlayaa dhiigga soo gelaya wadnaha oo laga yaraynayo, dhiiggii ka baxayay wadnaha ee jirka kala tegayay oo iyadana biyihii ku jiray aad jirka looga saarayo iyadoo la isticmaalayo qaar kaasida iyo waxyaalaha badinaya, iyada oo idiimadii ama dhiiggii biyihii ku fadhiistay jirka gudihiisa labadaas oo isu tegay ay iyaguna caawinayaan in dhiigkarkii uu lahaa qofku, hadduu dhiigkar lahaa in dhiigkarkiisi la dejinayo, sonkor hadduu lahaana sonkortiisi si fiican loo controlayo. waxaa kale oo kamid ah qofkaasi inuu u baahan yahay in la controlo maxay, haddii u baahan yahay waxa la yidhaahdo electricity-ga danabka wadnaha, iyadana in devices iyo qalabyo lagu xidho. haddii taasi ay wax u qaban weydana iyadana in qalin toos ah la geliyo, kaasi oo inta badan waxa loo yaqaana ACDM-ka ama in implantable cardioverter defibrillator la yidhaahdo oo baalkaa lagu xidho haddii uu xaaladaha galo. haddii taasi ay wax tari weydana haddii loo helo suuragalna ay noqoto, iyada oo waxyaalo badan loo eegayo criteria la eego, qofka da'diisu ay kamid tahay, jirkiisa kale iyo sida overallka u yahay tahay, availability-ga wadnaha kale la helaya ay ku jirto, inayna cid kale oo dhalinyara oo lamid ah oo la dhiiga oo u baahan ayna jirin. aduu waxyaalo dhowra ayay dhakhaatiirtu sheegaan loo eegaa in wadnaha laga bedelo haddii ay suuragal tahay meel lagaga bedeli karana uu joogo. inahaasaa ugu muhiimsan baan u malaynayaa xanuunka koowaad ee aynu kusoo qaadanayno videogan koowaad. videogan dhexdiisa ayaan jeedaa. waxaa xanuunada kale sida restricted-ka iyo kuwa haddaynu af soomaaliyeyno muruqii ballaadhanayay, maha kala baxa iyo ballaarashadu way kala duwanta. muruqa ayaa kala baxayo, kala bixidu waa inuu sidii baaluunka oo kale oo la buufiye oo kale u ballaadho. midna waa muruqa
gidaarkiisii baa weynaanaya oo xoogaysanaya, qallafayana oo aan sidii u shaqaynayn, midna muruqiisii oo iska dhuuban ama intiisiiba leeg ayaa u qallafaya oo shaqadiisa aan u qabsanaynin. Ta kalena inta badan waa inagii soo sheegnay oo waxyaalo ku saabsan inuu muruqa gudihiisu isbedelay oo isku bedelay salis kale. Waxyaalaha kalena waxaynu kaga hadli doonaa video ku xiga. haddii aad halkan nala soo gaadhay naguna cusubtay waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo biirto insha allahu. waxa aan rajaynaynaa su-aalihiina inaa xagga hoose noogu reebtaan, wixii talana gaarka ahna facebooka nagala soo xidhiidhaan insha allah. saasaan isku ognahay. asalaamu calaykum waraxmatullah.